isticmaalka caqliga caafimaadka qaba waxa uu keenaa midho buuxa oo u taagan shakhsiyadda ama koox wadareed aamintay kartida Ilaahay u siiyay inay soo bandhigaan xirfad dabeecadeed oo ay ku soo saari karaan arrimo hor leh ama kuwa hor u jiray oo ay cusboonaysiiyaan laakiin waxa muhiim ah yaqiinsashada iyo inuu qofku aqoonsado kartida iyo ibada Ilaahay siiyay ee ku saabsan maareynta noloshiisa iyo waliba inuu hindiso qorshe cusub oo ay la wadaagi karaan dad kale oo meel kula nool ama ay isku wadan joogaan tusaale ahaan muuqaalada arkaysaan waa dadka xirfadlayaasha ah ee ka shaqeysta tumista biraha kuwaasi oo aynu odhan karno waa kacaanka warshadaha ee Jamhuuriyadda Somaliland waayo itaalkoodu meel kasta ha gaarsiiye waxay la yimaadeen curin dadaal iyo karti taasi oo meel marinaysa in hindisahoodu uu noqdo mid wax tara iyaga iyo dadka reer Somaliland caqliga fayowi waxa uu cabiraa kaalin bannaan oo ka eegto bulshada si markaasi uu u daboolo kaalinta una aqoonsado in isaga baahi loo qabo isaga iyo xirfadiisaba waayo in ay dadkani caqligooda maalaan oo ay waliba duruufo adag ku hawlgalaan iyagoo ka xishooday ama ka gaabsaday inay gacanta cid hoos dhigtaan waxay u taagan tahay karti iyo raganimo ama shakhsiyad xaruurinimo ah oo ay soo bandhigeen ama muujiyeen waxay u qalmaan in la soo bandhigo waxqabadkooda waxaana yididiilo fiican u ah in ay muuqaaladan soo bandhigaan una soo gudbiyaan qaar badan oo laga yaabo in aanay warba uga haynin inay waddanka xirfadda sidani taalo laakiin laga yaabo inay caashaqsanaan lahaayeen ama ay jeclaan lahaayeen arrimo kuwan la mid ah oo laga soo waariday dalal shisheeye waa kuwa guryaha sameeyo oo daawayaalba laliyo wax lagu kaliyo oo saddex qaanadooda kuwani waa kuwii beerka lagu suulayay kuwani waa kuwii dhiraha lagu galiyay kuwaasi waa kuwii sabaradii wax lagu qalayay sanduuqyada sanxiisa sameeyna kuwa sanduuqyada kuwa kaaga sameeyna ma ibaan baalaasna waa kuwii guryaha lagu qurxinay kuwana maxay markaa kuwan maxay qabtaan gidaarada gaylidka ayay labadu isku qabtaan tusaalaha dal soo qaata saasay noqdaan oo markaa laambadii si aan u jabin ayaa loo geliyaa laambadii baa loo geliyaa markaa ilaa 20 qof baan ku shaqaynaa waxan midba qayb ka shaqeeya qaybta malqaacadaha ayay ka shaqeeyaan ma ibaanto waxa soo milan baan sameeynaa kadaha guriga loo geliyo Soomaali ayaa saa loo dulyo markaa si xaafadu ku karsataa cuntada iyo magaalada saayiryaha waaweyn kana saddex kale oo kale waaweyn saas laatigeed bal ayaa sameeynaa waxaan orban qola gudmaha sameeysa qola waxa sameeysa faashiska qola waxa sameeysa dad waxaan 20 nin meesha soo shaqatay محمود حاسن روبله محمود waxaan sameynaa waa maxay waa gudumihii reemiga kulka waanu u afeynaa qaarna waanu tunaa qaar cusubna waan sameynaa magaalada tahay cusub sameeyada alina waa kuwa noo yaala magacayga Anwar Axmed Tama waxa saad arkay waxa sameynaysaa waa mid hore la afeynayo kadibna adigu waa iska basiir ganacsigeegu adigu waa 2,000 shilin shilinka Soomaaliland markaad soofaynayso markaad mid cusub iibinaysana oo 50,000 shilin markaa yaa inta badan gudmaha u sameeyaan guddiyaha u sameeyaan kiibisa waxaan u sameeynaa dadka hudheelada waaweyn magaalada Hargeysa ku haysta sida deegaanada reemiga oo kale magacayga Naasir Yuusuf Maxamuud Naasir oo birtan atumayso maxaa laga dhigayaa birta waxa ka dhiganaa waa gudmooyin baan ka dhignaa waa kaamaan jignayaal way noqotaa marashiina way noqotaa marka iyagiyo ad googo marka dhow la kala googoynaa mise saxanaysa ma waa la googoynaayo kiirkaas dabkaas la geliyo la caseynaa waa la tumeeyaa hadhow Madri kaaga ayaa lagu sameeyaa that's a good point way marka hore magacaagu Guulad Cabdullaahi Xaashi guulad adigu qaybteed qaabilsanta maxaa sameeysaa qaybta gudmaha iyo faashaska iyo jignayaasha marka madaxas mid kan xabad kan waa jigne marka hore kaamaankan u kaamaankaas waa markiisa hore marka jignahaas ka dhignay waa kii xabaalaha lagu qodayay gufidana lagu saarayay kana waa guduntii tan waa faashkii
oo wixii dibadda inooga imanayay baa lagaga maarmay kanna waxa weeyaan waa tuuyo jiingad baan ka laabnaayo waxa lagu sameeyaa keega ها كيك قال قول حشوبه وتو سقطوا يصبح يا كيك ها سقول لمبرتويا markayagii horumarkayagii ayaan maanta noor yaala waxaana weeyaan ma taqaanaa waxaan doonaynaa inaan dadka iyo dalkaba wax ugu sii qabano oo magarasa horumarka ku gaarsiino horena ugu soo wadnay waxa weeyaan imka tan noor taala waxa weeyaan dhadhaarkii reer guuraa tanaan gacanta ku haya waa malqaacadii raashinka lagu cunayay tanaan gacanta ku haya kale waa goojidii waa machadii machadii beeraha tan waa guduntii remiga kan waa faaskii xaabada lagu magaranayay jijibinayay kan waa tiinkii biyaha marashadii beerta lagu qodayay dibiga kaasi waa saabkii kan awsiga lagu shiday mooyihii xawaashkii lagu tumanayay magaranaysa sidoo waa daawin laxooda lagu karsanayay runtan dibadda kama timaado laakiin faashkana dibadda uu ka yimaada tan anaga Soomaaliland bay gaar u tahay iyo midiyaha iyo signahaasi anaka sameeyna hadana dibadda ka soo waaridaan dibadda ka yimaadaan kulkaas qadeeda sidaas hoos ugu dhacaysa waxaad leeyihiin wasaaradda waxaad ka codsanaysaan in nalaga joojiyo midiyaha iyo alaabtan dibadda ka imanaysa farsamayaqaan imisa geeris ayaa ku baqtiyay imisa tumaal oo malaayaan iyo sidaa u fadhiya kuka waxa la joogaa waxa siin laga joojiyo dalka ku noolaadaan farsamayaqaanada joogaa u dhashay